Assalamu alaikum tout le monde, Wabout TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Manta barnamij keni ban si wadana jib micro trottoir. Anako manta tem kan haysano u yahay Jeudi Bilachat. Marka bal waxaan soo eeganaa de opinioyaasha reer Djibouti siday u arkayaan Djibouti oo Bilachada. Let's go. Assalamu alaikum. Salaam. Magaca Khadar. Soo magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Wali saaxib. سياد ولا طيب حسن طيب بالله والله روح اللي اسد احمد خان أنا وحنا لنا حسن يوسف الحان فيصل ميران عبد فرساق magacayga waxa la yiraahdaa hadda doonto Maxamed baa la yiraahdaa magacayga kalena Kamadaala la yiraahdaa ياسمين أحمد نبيل ترى حياة بالله ولا البرشة وناكسد عبد السلام اسماعيل Assalamu alaikum. Adeer magaca عليكم السلام أحمد وسام كامل بالله haye. Adeer maanta waa Khamiis Djiboutina waa Bilachat. Bal sida u arkaysid nagala yar hada. كي يمني جيبا نوصل قلي أو ثلاثة بيستينا كارتياي مكا أقارت وتدوب غلفرن كي يمني جا إنت عملكها هبنا جا مغنى هاي توبي Marka adigu waxa raacsan tahay dad kale jaadku intuu noo soo galin. ما سوق قلنا له أنا Adiga intuu soo gala doona saaba. Haye. Marka si u arkaysaa imika kan Yamaniga waa la qaaliyeeyay adigu de bal xaraarad halka ka gaadhay ma iibsan kari lahayd ما يسكرن laakiin hadduu kii caadigu noo soo galo ayaa adigu raacsan عادي عادي كاس aad baa maasanta maanta waa Jeudi Djiboutina waa Bilachat bal sida u arkaysid nagala Waxa yaroo la goyn kareen oo dicis la yiraahdo oo Yemen ka yimaada. Fahantay? Marka waan ku xumahay ninkii wax weyn cuni jirow saaka wax yar baa yimid. Fahantay? Marka maanta jidid tahay oo de reer Djibouti yar iyo weyn la barjin jiray la fadhiisan jiray maanta de waka Djibouti soo dar. marka adigu waxa raacsan tahay intuu baalku soo galinba oo de halka intuu nagaga harabo Mee baalka horta kama maarno Djibouti hadaan nahay. Ethiopia waan ku xidhannahay. والله سيتاسيون waxaan arkayaa inuu umad badan oo jaadka cuni jirtay ay ku adag tahay laakiin aan waxaan islaahay iidahan in sidan u fiican tahay wax ayaga u harayan weeyaan iyo jeebkooda ku haray sababta khasaare un buu ku joogay wax faa'iido uu ku joogay ma jiro marka wax jeebkooda u haray waa faa'iido ahaan ay maanta aan u tahay un baan anigu ahaan arkaa imkaan marka waxa raacsan tahay dadka la jaadku intuu saaba nagaga maqnaado intuu noo soo galin sida baan aan raacsanahay marka guud ahaan micnahan saa loo eego sababtoo ah wax faa'iido qofka bilaadanka u haray weeyaan wuxuu khasaare ka joogayaan ma barjeesaday waan barjeeyaha haye marka maanta de wadiga arkay magaaladu waa Bilachat waa Khamiis sidee u arkaysaa bal xaaladaada nooga war والله xaaladaydu habi waay saacadahan oo kale guudka uma soo bixi jirin majliska ayaan joogi jiray maanta marka dareenkayga aad buu u faraxsan yahay faa'iidooyin badan baan tabayaa caruurtii baan soo shirshirsiiyay meesha sharaabkan keenay aniga guudka u soo baxay iska shirshiraya marka kulley jaadku dhibaatooyin badan buu leeyahay xaq dhaqaale xaq caafimaad waa waxaan ka maarmi karno waa laga maarmi karaa marka su'aashan ku yar weydiin lahaa waxa weeyaan dayb tiyo ogtihid inta laga maarmi karayaa ma intuu dhibaatooyin badan leeyahay maxaa loo barjayaaba is oran lahayd bal hadalna de loogu dhaqaaqay والله سؤاشاas waa wax meesha ku jirta in badan oo muddo 30 sanadood ah maanta deyn bari baa deyntaas un baan hayay haddana aroorta markuu soo galo anoo ku dhaqaaqaya un baan sarka marka imika ku raacsanaan lahayd intuu jaadku sidaaba u Djibouti aad baan ugu faraxsanaan lahaa hadduu sidaa naga maqnaanayo insha Allah de Saciid ma barjasa Saciid waan barjeeyaa haye maanta saa u arkaysid magaaladu waa Bilachat waana Khamiis marka bal sidee u arkaysaa والله dad badan baa isku soo joogsaday bilbilan lama maseexan dariiqada oo dhan baa la soo taagay jaadki waa sugayna wallahi jaad yar waxa jimid ticiisa afar kun baan nagari jaadki kale xareeda leer keenay jaadki xareedina waxa la yiraahdaa 4 kun oo faran marka nuskiina 2 kun oo faran hadii inta ay qaasina birqaan yar ma ahne ma noqonayso lacagta ka far badan magaalada wallahi day bilaajata maanta hadii lagu yiraahdo 2 kun oo hilib cun ma cunaysid laakiin 2 kun oo jaadood cunaysa ku baxas haye wala kirnay dadkii marka adigu ma barjasa anigu mar baan galiyaa marka ma ka maarmi kari lahayd sidaan u soo arbaxo ma ka maarmi kari lahayd baas leedahay mise baalka kama seexan kari markaan galiyada kama maarmi karo haddii iska yeelo aniga uma baxaraarado laakiin haddii la waayo waxa ka seexan ku soo xaadiraya duwaab doomaasadaas daahirow ma barjasa وان برشيها haye magaalada maanta soo arkaysidna waa Bilachat waana Khamiis sidee u arkaysaa magaaladu maanta way kacsantahay oo Bilachat keenay wixii Yemen ka mid Ethiopia ka badan ugu qaalisan 4 kun oo shaqo baalay iyo 5 kun baalay taama karajad kan loo sida meel kasta ka soo gal baalku Xasan ma barjasa ها وان magaaladu maanta waa Bilachat waana Khamiis sidee u arkaysaa de sawirka waxa markaya magaalada Dibaaba
dambasa waxba jirin jaadkii la kana qaali 5 kun 6 kun baa la siinay annaguna waxaan marnay 3 kun iyo waxaan marnay soojiig waxaaba marnay marka jaadan fahmeyna haa jaadan jirin waan gartay marka ma laga shaqaysan karayaa bas leedahay de jaadli magaaladu ma shaqayn karaysaa mise inta isla seexanaysaa ma meel isla shaqayn meesha xubnaha anu gaariyada wada xubnahana wala joogsaday bas gaariga bas iska dhibaa marka wadi kari waayo marka jaadli lama shaqayn karayaa waxna Faisal ma waa barjaya haye Fariid magaaladu maanta waa bilaajaad Faisal oo soo waarkis waana khamiis bal waana khamiis waarun jaad awee ba shaqayn karay shofeer ba siga dhigay gaari shofeer gaar xumuli marka bas baa wada jaad aldida waxa leeyahay lama shaqayn karayo lama socon karayo dhugu waa dam hay marka lama shaqayn karayaa taagan tahay jaad hadduu soo galo lama dhaqaaqay karayaba bilaajaad lama shaqayn karayo anoo krishbey baanahay bilaajaadna maba dhaqaaqi karayna shaqay ku haysanaaba iminka bun iyo shaabaan isku soo daray lama dhaqaaqi karayaba jeedidana way ka sii xaq jirtaaba ay taayir lama roogi karo iminka indhaha isku ka ardaya inaan urdo tago waxba lama saacad darawa islaantii gaari lahayd wali wana qabsanaysaa yum laan ay marka wax loogu jawaabana ma jiro deelan jaad baan waayo oo shaqayn waayo jawaab may kula ekaani jaad baan waayo ma shaqayn karayo ma lagama yeelayba gaarigana anaa ka mas'uula kamadaalow maanta waa khamiis Djibouti waa bilaajaad sida warkisi ban waxa weeye anigu 7 jir baan intaaba jaad u manucna wuxuuna galiyay haddii aanu maalin weyno waa u saaxanayna soomad garan marka annaga waxa kale waxba la gawagelinay waxa weeye khudradda yar iyo jaadka yar labada midna inaan waayin haye marka su'aal baan ku weydiin lahaa adeer khudrad tiyo lagu yiraahdo khudrad soo gali meeso iyo jaad soo gali maayo tii aad u raacsanaan maanigu khudraddu ha iska maqnaatay jaadkay keen nacamtu billah jaad ma lagu noolaanaya nolol ma noolaanaya ha wallahi sheefar maxay cunaan marka anagu ma sheefar baan nahay sheefar waan ka daranayo nacamtu billah aad baa baasata bilaajaadna lama noolaan karayo bilaawaashkana waa kama yaalo bilaawaashkana lama noolaan karayo labadaba waan ka doodayaa dhakee u badanaan lahayd bal haddaa lagu oranayay Djibouti haddii toole xawaash soo gali maayo khudrad ama jaad soo gali maayo dhakee dhanka dumarka haddaad tahay dee hawaashka unbaan u doodi lahaa laakiinse jaadkana waa loo baahayahay laakiin dumarkeen waxay u badan yihiin intay ragga kaga soo horjeestaanba dhanka jaadka iyo wax oo waxay yidhaahdaan dee xumaan badan buu u keenaa qoyska hadday noqoto waxyaal badan marka adiga fikradda hadduu jaadka u soo galaayi dhama hadduu u soo galo oo dee maxay ku fiicnaadaan bal jaadku hadduu u soo galo maxay kaga duban yihiin markuu soo geli waayo markuu jaadka u soo galo waa degnaanayaan iyaku marka kale way kacsan yihiin maanta xayaadaysa u arkaysid waa khamiis Djiboutina waa bilaajaad bal fikradaada ka dhig jaadku wallaahi waxaan u malaynayaa inuu dadkii biilkii ka dhameeyey inuu khaatiyaan ka dhigay maxaa la yidhaahdaa jaadku nacam ashkatadiisa lamaba xisaabin karayo wallaahi dadka wuu dhibay waad arkaysaa ama waxaan jeclaynba in jaadka la joojiyo oo cashadii qadada laga dhergo oo maxaa la dhahay xitaa baagiyaha dadka laga cuno markaa jaadku dadka wuxuu ku ridaa mustaqbal liibuu ku ridaa wallaahi wuu dhibay ilaahay ha ka reebaan leenahay waddankeygana barwaaqaha loo noo geliyo xawaashka laha noo furo alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waa farxad weeyaan waayo dadku waxay ku faraxsan yihiin dadkii aan isarki jirin baa isarkay nin kastaba baalku hud buu ku xidhay anuu maanta waxaan la kulmay dad badanoo dhowr sanno arag baan la kulmay ta labaad waxa weeyaan dadku aqligooga ciyaaraya dadkani kan jaadi dadka curyaan buu ka dhigay curyaan buu ka dhigay wuxuu baday caafimaad darro nolol darro ee koominig la'aan labadii xaafadda wala joogtay baa culoobaay wuxoogii baa lagu cunayaa ubadkii baa waxba la markaa maanta waxaan leennahay wixii ubadkayaga la siin lahaa buu bahalkaa jaadi naga qaatay marka anna waxaan leennahay bahalkuuba nagu dhagaroobayba waaba dhagarba soo ma garanays waan ku fahmay waa dhagar ma fahanteen adigu waxaa raacsan tahay intuu jaadku sidaa uu nagaga haro waa bilaa nolol ma hayo ninka jaad cunay maanta magaaladu waa bilaajaad waa jeediyo waa bilaajaadna bal sidee u arkaysaa waxa weeyaan jaad wuu nagu talaalmay bilaajaad ma shaqayn karayno yaa nintii wax aysan uu
saddex shantu buu siisanaya tii wax haysta tii aan waxba haysan ciyaarta lacadoodii u cunaya masaariftii ciyaartu bilaa caano noqonaya ee jaad saani ha noo fasax meel walba amba jaad ha noo daayay war jaadka qaaliba naga siiyay meesha waa lagu baadhanaya waa ka sada intaaba marka makiya Yamanigii baa soo war Yamanigii baa soo iibsaday yoomkiiba salagaasiya yoomkiiba intaaba soo siiyay bas khalaas yoomkaygii dhannaaya saako kacayba hayo naga qabta dadka naga qabto jaadka soo daayay Assalamu alaikum tout le monde, Wabout TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Manta barnamij keni ban si wadana jib micro trottoir anako manta tem kan haysano u yahay Jeudi bila chat. Marka bal waxaan soo eeganaa de opinioyaasha reer Djibouti siday u arkayaan Djibouti oo bila chada. Let's go. Assalamu alaikum. Salaam. Magaca Khadar. soo magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Wali saaxib. Siyaad walaal طيب حسن ciid baa leeyahay walaal waxa la Asad Ahmed Khan aniga waxa la yiraahdaa Xasan Yusuf Lahan faysal meeran cabdi farsaaq magacayga waxaa la yidhaha haddaad doonto maxamed baa la yidhaha magacayga kalena kamadaalaa la yidhaha ياسمين أحمد تلا حياة بالله ولا البرشة وناكسد عبد السلام اسماعيل Assalamu alaikum. Adeer magaca عليكم السلام أحمد وسام كامل ولا haye. Adeer maanta waa Khamiis Djiboutina waa bila chat. Bal sida u arkaysid nagala yar hada. kii Yamanigii baa noo soo galay oo talata bisteena kaartiyaa imika aqaartu waa 700 faran kii Yamaniga ee intaan leeka haba naga maqnaada ka Itoobiya Marka adigu waxa raacsan tahay dadka le jaadku intuu noo soo galin. ma soo galan lahayn anigu adiga intuu soo gala dawla saaba haye. Marka si u arkaysaa imika kan Yamaniga waa tala qaaliyeeyay adigu de bal xaraarad halka ka gaadhay ma iibsan kari lahayd ma iibsan kareen laakiin hadduu kii caadigu noo soo galo ayaa adigu caadi kaas aad baa maasata maanta waa Jeudi Djiboutina waa bila chat bal sida u arkaysid nagala wax yaroo la goyn kareen oo dicis la yiraahdo oo Yamanta ka yimaada fahantay marka waan ku xumahay ninkii wax weyn cuni jirow saaka wax yar baa yimid fahantay marka maadaama maanta jidid tahay oo de reer Djibouti yar iyo weyn la barjin jiray la fadhiisan jiray maanta de waka Djibouti wada marka adigu waxa raacsan tahay intuu baalku soo galinba oo de halka intuu naga harabo ma baalka horta kama maarno Djibouti hadaan nahay Ethiopia oo ku xidhannahay wallahi situationka waxaan arkayaa inuu ummad badan oo jaadka cuni jirtay ay ku adag tahay laakiin aan waxaan islaahay iidahan inay sidan u fiican tahay wax ayaga u hadhayan weeyaan iyo jeebkooga ku hadhay sababta khasaare buu ku joogay wax faa'iido uu ku joogay ma jiro marka wax jeebkooga u hadhay waa faa'iido ahaan ay maanta aan u tahay baan anigu ahaan arkaa imkaan marka waxa raacsan tahay dadka la jaadku intuu saaba nagaga maqnaado intuu noo soo galin sidaa baan raacsanahay marka guud ahaan micnahan saa loo eego sababtoo ah wax faa'iido qofka bilaadanka u hadhay weeyaan wuxuu khasaare ka joogo weeyaan ma barjeesaday waan barjeeyaha haye marka maanta de wadiga arkay magaaladu waa bila chat waa Khamiis sidee u arkaysaa bal xaaladaada nooga war wallaahi xaaladaydu habi waayo saacadahan oo kale guudka uma soo bixi jirin majliska ayaan joogi jiray maanta marka dareenkayga aad buu u faraxsan yahay faa'iidooyin badan baan tabayaa caruurtii baan soo shirshirsiiyey meesha sharaabkaan keenay aniga guudka u soo baxay iska shirshiraya marka kulley jaadku dhibaatooyin badan buu leeyahay xaq dhaqaale xaq caafimaad waa waxaan ka maarmi karno waa laga maarmi karaa marka su'aashaan ku yar weydiin lahaa waxa weeyaan dayb tiyo ogtihid inta laga maarmi karayo ama intuu dhibaatooyin badan leeyahay maxaa loo barjeeyaaba is oran lahayd bal hadalna de loogu dhaqaaqay wallaahi su'aashaasi waa wax meesha ku jirta in badan oo muddo 30 sannadood ah maanta deyn berri baa deyntaas baan hayay haddana aroorta markuu soo galo anoo ku dhaqaaqaya baan sarka marka imika ku raacsanaan lahayd intuu jaadku sidaaba u Djibouti aad iyo aad baan ugu faraxsanaan lahaa haduu sidaa naga maqnaanayo insha Allah de Saciid ma barjeesa Saciid waan barjeeyaa haye maanta saa u arkaysid magaaladu waa bila chat waana Khamiis marka bal sidee u arkaysaa wallaahi dad badan baa isku sira joogsaday bilbilay lama maseexan dariiqada oo dhan baa la iswada taagay jaadkii waa sugayna wallaahi jaad yar waxa jimid ticiisa afar kun baan nagari jaadkii kale xareedda leer keenay jaadkii xareedina waxa la yiraahdaa 4,000 oo faran marka nuskiina 2,000 oo faran haddii inta ay qaatina birqaan yar ma ahne ma noqonayso lacagta ka far badan magaalada wallahi hadii bila jaata maanta hadii lagu yiraahdo 2,000 oo hilib cun ma cunaysid laakiin 2,000 oo jaadood cunaysa ku baxas haye wala kirinay dadkii marka adigu ma barjeesaa anigu mar baan galiyaa marka ma ka maarmi kari lahayd sidaan oo soo arbaxo
ما كم مار بكير اللي هي بس لا ضحي مسبارك كمان سيحك ما مركان قليته كمان مار مكرو هدوس كيا لانيكا وما بحرارة لكن هدي لوايو وصو حاضر يا دواب ها دو ما صدق ظاهرو ما برج waan barsheeyaha haye magaalada maanta soo warkisid waa bilaajaad waana khamiis sidee war magaaladu maanta way kacsantahay waa bilaajaadkeena ay wixii yama ka mid Itoobiya ka badan ugu qaalisan 4,500 baalay iyo 5 baalay taa ma karjaadkan loo sida meel kasta ka soo galbaalku xasan ma barj ha waan cunay magaaladu maanta waa bilaajaad waana khamiis sidee war desawarka waxaan arkayaa magaalada dibaaba dambasa waxba jirin jaadkii la kana qaali 5 ku balasiin anaguna waxaan maray 3 iyo waxaan maray soojiig waxaaba maran marka jaadan fahmayna ha jaadan jirin waan gartay marka ma laga shaqeysan karayaa bas leedahay de jaadli magaaladu ma shaqeyn karaysaa mise inta isla seexanaysaa ma meel isla shaqeyn meesha xubnaha anu gaariyada wada xubnahana wala joogsaday gaari bas iska dhiba marka wadi kari waayo marka jaadli lama shaqeyn karayaa waxda Faisal ma waa barjaya haye Fariid magaaladu maanta waa bilaajaad Faisal oo soo warkisid waana khamiis bal iiga waana khamiis waarun jaad awee ba shaqeyn karay shofeer bas iga dhigay gaari shofeer gaar xumuli marka bas baa wada jaad aldida waxa leeyahay lama shaqeyn karayo lama socon karayo dhugu waa dam hay marka lama shaqeyn karayaa taagan tahay jaad hadduu soo galo lama dhaqaaqay karayaba bilaajaad lama shaqeyn karayo anagu krishwey baan nahay bilaajaadna maba dhaqaaqi karayna shaqay ku haysanaaba iminka bun iyo shaabaan isku soo daray lama dhaqaaqi karayaba jeedidana way ka sii xaq jirtaaba ay taayir lama roogi karo iminka inaad isku ka ardaya inaan urdo tago waxba lama saacad darawa islaanti gaari leedo wali wana qabsanaysaa yumlaan ay marka wax loogu jawaabana ma jirayo deelan jaad baan waayo oo shaqeyn waayo jawaab may kula ekaani jaad baan waayo ma shaqeyn karayo ma lagama yeelayba gaarigana anaa ka mas'uula kama daalow maanta waa khamiis Djibouti waa bilaajaad sida warkiisi ban waxa weeye anigu 75 jir baan intaaba jaad u manucnaa wuxuuna geliyey haddii aanu maalin weyno waa u saaxanaynaa soo maad garan marka annaga waxa kale waxba laga gelinay waxa weeye khudradda yar iyo jaadka yar labadaa midna inaan waayin haye marka su'aal baan ku weydiin lahaa adeer khudrad tiyo lagu yiraahdo khudrad soo gali meeso iyo jaad soo gali maayo tii aad u raacsanaan maanigu khudraddu ha iska maqnaatay jaadkay keen nacamtu billah jaad ma lagu noolaanaya nolol ma noolaanaya ha wallahi sheefar maxay cunaan marka anagu ma sheefar baan nahay sheefar waan ka daranayo nacamtu billah aad baa baasatay bilaajaadna lama noolaan karayo bilaawaashkana waa kama yaalo bilaawaashkana lama noolaan karayo labadaba waan ka doodayaano dhakee u badanaan lahayd bal haddaa lagu oranayay Djibouti haddii toole xawaash soo gali maayo khudrad ama jaad soo gali maayo dhakee dhanka dumarka haddaad tahay dee hawaashka unbaan u doodi lahaa laakiinse jaadkana waa loo baahayahay laakiin dumarkeen waxay u badan yihiin intay ragga kaga soo horjeestaanba dhanka jaadka iyo wax oo waxay yidhaahdaan dee xumaan badan buu u keenaa qoyska hadday noqoto waxyaal badan marka adiga fikradda hadduu jaadka u soo gala ii dhama hadduu u soo galo oo dee maxay ku fiicnaadaan bal jaadku hadduu u soo galo maxay kaga duban yihiin markuu soo geli waayo markuu jaadka u soo galo waa degnaanayaan iyaku marka kale way kacsan yihiin maanta xayaadaysaa u arkaysid waa khamiis Djiboutina waa bilaajaad bal fikradaada ka dhig jaadku wallaahi waxaan u malaynayaa inuu dadkii biilkii ka dhameeyey inuu khaatiyaan ka dhigay maxaa la yidhaahdaa jaadku nacam ashkatadiisa lamaba xisaabin karayo wallaahi dadka wuu dhibay waad arkaysaa ama waxaan jeclaynba in jaadka la joojiyo oo cashadii qadada laga dhergo oo maxaa la xitaa baagiyaha dadka laga cuno marka jaadku dadka wuxuu ku ridaa mustaqbal liibuu ku ridaa wallaahi wuu dhibay ilaahay ka reebaan leenahay waddankeygana barwaaqaa loo noo geliyo xawaashka laha noo furo alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waa farxad weeyaan waayo dadku waxay ku faraxsan yihiin dadkii aan isarki jirin baa isarkay nin kastaba baalku hud buu ku xidhay anuu maanta waxaan la kulmay dad badanoo dhowr sano arag baan la kulmay ta labaad waxa weeyaan dadku aqligooga ciyaaraya dadkani kan jaadi dadka curyaan buu ka dhigay curyaan buu ka dhigay wuxuu baday caafimaad darro nolol darro ee koominig la'aan labadii xaafadda wala joogtay baa culoobaay wuxoogii baa lagu cunayaa ubadkii baa waxba la markaa maanta waxaan leennahay wixii ubadkayaga la siin lahaa buu bahalkaa jaadi naga qaatay marka anna waxaan leennahay
bahalkuuba nagu dhagaroobayba waaba dhagarba soo ma garanays waan ku fahmay waa dhagar ma fahantan adigu waxaa raacsan tahay intuu jaadku sidaa uu nagaga haro waa bilaa nolol ma hayo ninka jaad cunay maanta magaaladu waa bilaa jaad waa jeediyo waa bilaa jaadna bal sidee u arkay waxa weeyaan jaad wuu nagu talaarmay bilaa jaad ma shaqayn karayno yaa nintii wax aysan uu saddexdu shantu buu siisanaya tii wax haysta tii aan waxba aysan ciyaad lacadoodii u cunaya masaariftii ciyaadu bilaa caano noqonaya ee jaad saani ha noo fasax meel walba amba jaad ha noo daayo war jaadka qaali baa naga siiyey meesha waa lagu baadhanaya waa ka sada intaaba marka makiya yamanigii baa soo iibsaday war yamanigii baa soo iibsaday yoomkiiba saa laga siiyay yoomkiiba intii baa soo siiyey bas khalaas yoomkaygii dhannaaya saaka u kacayba hayo war naga qabta dadka naga qabto jaadka soo daayay Assalamu alaikum tout le monde, Wabout TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mata barnamij keni ban si wadana jib micro trottoir. Anako mata tem kan haysano u yahay jeudi bila chat. Marka bal waxaan soo eeganaa de opinioyaasha reer Djibouti siday u arkayaan Djibouti oo bila chada. Let's go. Assalamu alaikum. Salaam. Magaca Khadar. soo magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Wali saaxib. Siyaad walaal طيب حسن ciid baa leeyahay walaal waxa la asad Ahmed Qaan aniga waxa la yiraahdaa Xasan Yusuf Lahan faysal meeran arsaaq magacayga waxa la yiraahdaa hadda doonto maxamed baa la yiraahdaa magacayga kalena kamadaala la yiraahdaa yasmiin axmed tala xayaad baa la yiraahdaa walaal barasho wanaagsan cabdisalaam ismaaciil Assalamu alaikum adeer magaca calaykum assalaam Ahmed Usama Kaamil baa haye adeer maanta waa khamiis Djiboutina waa bila chat bal sida uu arkaysid nagala yar hada kii yabanigii baa noo soo galay oo telefibisteena kaartiyaamika aqaartu waa 700 faran kii yabaniga ee inta amleka haba naga maqnaada ka Itoobiya marka adigu waxa raacsan tahay dadka le jaadku intuu noo soo galin ma soo galan leh anigu adiga intuu soo gala doona saaba marka si uu arkaysaa imika kan yamaniga waa tala qaaliyeeyay adigu de bal xaraarad halka ka gaadhay ma iibsan kari lahayd ma iibsan kareen laakiin hadduu kii caadigu noo soo galo ayaa adigu caadi kaas aad baa maasantay maanta waa jeudi Djiboutina waa bila chat bal sida uu arkaysid nagala waxa yaroo la goyn kareen oo dicis la yiraahdo oo yamanta ka yimaada fahantay marka waan ku xumahay ninkii wax weyn cuni jirow saaka wax yar baa yimid fahantay marka maadaama maanta jidid tahay oo de reer Djibouti yar iyo weyn la barjin jiray la fadhiisan jiray maanta de waka Djibouti wada marka adigu waxa raacsan tahay intuu baalku soo galinba oo de halka intuu nagaga harabo ma baalka horta kama maarno Djibouti hadaan nahay Ethiopia waan ku xidhannahay wallahi situationka waxaan arkayaa inuu ummad badan oo jaadka cuni jirtay ay ku adag tahay laakiin anigu waxaan islaahay iidahan inay sidan u fiican tahay wax ayaga u hadhayan weeyaan iyo jeebkooga ku hadhay sababta khasaare buu ku joogay wax faa'iido uu ku joogay ma jiro marka wax jeebkooga u hadhay waa faa'iido ahaan ay maanta aan u tahay baan anigu ahaan arkaa imkaan marka waxa raacsan tahay dadka la jaadku intuu saaba nagaga maqnaado intuu noo soo galin sidaa baan aan raacsanahay marka guud ahaan micna ahaan saa loo eego sababtoo ah wax faa'iido qofka bini'aadanka u hadhay weyn wuxuu khasaare ka joogo weyn ma barjeesaday waan barjeeyaha marka maanta de wadiga arkay magaaladu waa bila chat waa khamiis sidee u arkaysaa bal xaaladaada nooga war wallahi xaaladaydu habi waay saacadahan oo kale guudka uma soo bixi jirin majliska ayaan joogi jiray maanta marka dareenkayga aad buu u faraxsan yahay faa'iidooyin badan baan tabayaa caruurtii baan soo shirshirsiiyey meesha sharaabkaan keenay aniga guudka u soo baxay iska shirshiraya marka kulley jaadku dhibaatooyin badan buu leeyahay xaq dhaqaale xaq caafimaad waa waxaan ka maarmi karno waa laga maarmi karaa marka su'aashaan ku yar weydiin lahaa waxa weeyaan dayb tiyo ogtihid inta laga maarmi karaya ama intuu dhibaatooyin badan leeyahay maxaa loo barjayaaba is oran lahayd bal hadalna de loogu dhaqaaqay والله سؤاشاas waa wax meesha ku jirta in badan oo muddo 30 sanadood ah maanta deyn bari baa deyntaas u malhay haddana aroorta markuu soo galo anoo ku dhaqaaqaya uma sarka marka imka ku raacsanaan lahayd intuu jaadku sidaaba u Djibouti aad baan ugu faraxsanaan lahaa dusada inaga maqnaanayo insha Allah de Saciid ma barjasa Saciid waan barjaya haye maanta saa u arkaysid magaaladu waa bila jaad waana khamiis marka bal sidee u arkaysaa wallahi dad badan baa isku soo joogsaday bilbilan lama maseexan dariiqada oo dhan baa la soo taagay jaadkii waa sugayna wallahi jaad yar waxa jimid tiisa afar kun baan nagari
jaadkii kale xareedda leer keenay jaadkii xareeddina waxaa la yidhaha 4 kun oo faran marka nuskiina 2 kun oo faran haddii intaa qaadina birqaan yar maahane ma noqonayso lacagta ka far badan magaalada wallahi haday bilaajaata maanta haddii lagu yidhaha 2 kun oo hilib ma cunaysid laakiin 2 kun oo jaadood cunaysaa ku baxas haye eeba la keenaya dadkii marka adigu ma barjaysa anigu mar baan geliyaa marka ma ka maarmi kari lahayd sidaan u soo arbaxo ma ka maarmi kari lahayd baas leedahay mise baalka kama seexan kari markaan geliyada kama maarmi karo hadduu iska yaalo aniga uma baxraarado laakiin haddii la waayo ugu soo xaadiraya duwaab daahirow ma barjaysa waan barjeeyaha haye magaalada maanta soo arkaysidna waa bilaajaad waana khamiis sidee magaaladu maanta way kacsantahay waa biljaadkeena wixii yeman ka yimid Itoobiya ka badan ugu qaalisan 4,500 baalay iyo 5 baalay taa ma karin jaadkan loo sida meel kasta ka soo kala baalku xasan ma barjaysa ها والله magaaladu maanta waa bilaajaad waana khamiis sidee de sawirka waxaan arkayaa magaalada Dubaaba Dambas waxba jirin jaadkii la kana qaali 5 kun 6 kun baa la siinay anaguna waxaan maray 3 kun iyo waxaan maray soojiig waxaaba maran marka jaadan fahmeyna ha jaadan jirin waan gartay marka ma laga shaqeysan karayaa bas leedahay de jaadli magaaladu ma shaqeyn karaysaa mise inta isla seexanaysaa ma meel isla shaqeyn meesha xubnaha anu gaariyada wada xubnahana wala joogsaday bas iska dhiba marka wadi kari waayo marka jaadli lama shaqeyn karayaa waxna Faisal ma waa barjaya haye Fariid magaaladu maanta waa bilaajaad Faisal soo warkiis waana khamiis bal waana khamiis waarun jaad awee ba shaqeyn kara shofeer ba siga dhigay gaari shofeer gaar xumuli marka bas baa wada de jaad aldida waxa leeyahay lama shaqeyn karayo lama socon karayo dhugu waa dam hay marka lama shaqeyn karayaa taagan tahay jaad hadduu soo galo lama dhaqaaqi karayaba dee bilaajaad lama shaqayn karayo annagu kirshbey baan nahay bilaajaadna maba dhaqaaqi karayna shacay ku ansaysanaaba iminka bun iyo shaabaan isku soo daray dee lama dhaqaaqi karayaba jeedidana way ka sii xag jirtaaba ay taayir lama roogi karo iminka indhaha isku ka ordaya inaan urdo tago waxba lama ascadara wax islaantii gaari lahayd wali wana qabsanaysaa yum laan ay marka wax loogu jawaabana ma jirayo deelan jaad baan waayo oo shaqeyn waayo jawaab may kula ekaani jaad baan waayo ma shaqeyn karayo ma lagama yeelayba gaarigana anaa ka mas'uula kama daalow maanta waa khamiis Djibouti waa bilaajaad sida warkiisi ban waxa weeye anigu 37 jir baan intaaba jaad u manucna wuxuuna geliyay haddii aanu maalin weyno waa u saaxanayna soo garan marka annaga waxa kale waxba laga gelinay waxa weeye khudradda yar iyo jaadka yar labada midna inaan waayin haye marka su'aal baan ku weydiin lahaa adeer khudrad tiyo lagu yiraahdo khudrad soo gali meeso iyo jaad soo gali maayo tii aad u raacsanaan maanigu khudraddu iska maqnaatay jaadkay keen nacamtu billah de jaad ma lagu noolaanaya nolol ma noolaanaya ha wallahi sheefar maxay cunaan marka anagu ma sheefar baan nahay sheefar waan ka daranayo nacamtu billah aad baa baasata bilaajaadna lama noolaan karayo bilaawaashkana waa kama yaalo bilaawaashkana lama noolaan karayo labadaba waan ka doodayaa dhakee u badanaan lahayd bal haddaa lagu oranayay Djibouti haddii toole xawaash soo gali maayo khudrad ama jaad soo gali maayo dhakee dhanka dumarka haddaad tahay dee hawaashka un baan u doodi lahaa laakiinse jaadkana waa loo baahayahay laakiin dumarkeen waxay u badan yihiin intay ragga kaga soo horjeestaanba dhanka jaadka iyo wax oo waxay yidhaahdaan dee xumaan badan buu u keenaa qoyska hadday noqoto waxyaal badan marka adiga fikradda hadduu jaadka u soo galo ayay dhama hadduu u soo galo oo dee maxay ku fiicnaadaan bal jaadku hadduu u soo galo maxay kaga dubayiin markuu soo geli waayo markuu jaadka u soo galo waa degnaanayaan iyaku marka kale way kacsan yihiin maanta xayaadaysaa u arkaysid waa khamiis Djiboutina waa bilaajaad bal fikradaada ka dhig jaadku wallaahi waxaan u malaynayaa inuu dadkii biilkii ka dhameeyey inuu khaatiyaan ka dhigay maxaa la yidhaahdaa jaadku nacam ashkatadiisa lamaba xisaabin karayo wallaahi dadka wuu dhibay waad arkaysaa ama waxaan jeclaynba in jaadka la joojiyo oo cashadii qadada laga dhergo oo maxaa la xitaa baagiyaha dadka laga cuno marka jaadku dadka wuxuu ku ridaa mustaqbal liibuu ku ridaa wallaahi wuu dhibay ilaahay ka reebaan leenahay waddankeygana barwaaqaa loo noo geliyo xawaashka laha noo furo alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waa farxad weeyaan waayo dadku waxay ku faraxsan yihiin dadkii aan isarki jirin baa isarkay nin kastaba baalku hud buu ku xidhay anuu maanta waxaan la kulmay dad badanoo dhowr sanno arag baan la kulmay ta labaad waxa weeyaan dadku aqligooga ciyaaraya dadkani kan jaadi dadka curyaan buu ka dhigay curyaan
buu ka dhigay wuxuu baday caafimaad darro nolol darro ee kuuminig la'aan labadii xaafadda wala joogtay baa coloobay wuxoogii baa lagu cunayaa ubadkii baa waxba la markaa maanta waxaan leenahay wixii ubadkayaga la siin lahaa buu bahalkaa jaadi naga qaatay marka anna waxaan leenahay bahalkuuba nagu dhagaroobayba waaba dhagarba soo ma garanays waan ku fahmay waa dhagar ma fahantan adigu waxaa raacsan tahay intuu jaadku sidaa uu nagaga haro waa bilaa nolol ma hayo ninka jaad cunay maanta magaaladu waa bilaa jaad waa jeediyo waa bilaa jaadna bal sidee u arkaysaa waxa weeyaan jaad wuu nagu talaalmay bilaa jaad ma shaqayn karayno yaa nintii wax aysan uu saddexdu shantu buu siisanaya tii wax haysta tii aana waxba aysan ciyaarda lacadoodii uu cunaya masaariftii ciyaardu bilaa caano noqonaya ee jaad saani ha noo fasax meel walba amba jaad ha noo daayo war jaadka qaaliba naga siiyay meesha waa lagu baadhanaya waa ka sada intaaba marka makiya yamanigii baa soo war yamanigii baan soo iibsaday yoomkiiba saa lagaa siiyay yoomkiiba intii baan soo siiyay bas khalaas yoomkaygii dhannaaya saaka u kacayba hayo naga qabta dadka naga qabto jaadka soo daayay